kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan barnaamijkeenan maanta daawadayaal ayaan waxaan ku soo qaadan doonaa arrimaha dhinaca doorashooyinka ee gobolkan bilihii u dambeeyay ka socday tartanka doorashada ee aqalka hoose ee baarlamaanka gobolkan Minnesota ee dhici doona bisha November ee nagu soo aadan ayaa bilowgeedii la saanqaaday dhaqano aan dalkan Mareykanka looga baran marka doorasho la gelayo tartanka oo dhinaca xisbiga dimuqraadiga ee gobolka ay u sharaxan tahay Phyllis Khan ay u sharaxan yihiin haweeneyda lagu magacaabo Phyllis Khan oo ah haweeneydu kursigaasi fadhiday 42 sano ayaa haatan waxay u boocdhigaysaa oo ay la legdamaysaa Maxamuud Nuur oo isagu ah nin Soomaaliya dhinaca xisbiga Republican ayaa isagana waxa xaqiisa ka soo jeeda Cabdimalik Maxamed Askar oo isagu u gaardinaya hadba qofkii ku soo adkaada dhinaca xisbiga dimuqraadiga Soomaalida gobolkan ku dhaqan ayaa hadaba u kala safan una codeeya Phyllis Khan iyo Maxamuud Nuur bilowgii tartankan ayaa xiisad iyo saxmad la kowsaday gacanta ayaa daawadayaal isla tagay doorashada oo socotay gacanka hadal iyo afrigaado ayaa kala gaadhay dadkii taageerayaasha ah qaarkood kuwaasi oo sababay in xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay codadkii markaasi lagu qaaday dib loo dhigo oo meel kale loo raro dhawaan ayaa iyadana haweeneyda Phyllis Khan waxay maxkamad u gudbisay dacwad ka dhana markaasi dhinaca Maxamuud Nuur taasi oo ay ku andacootay in sanduuq boosto ku yaala xaafadda Soomaalidu ay sida weyn u degan tahay ee sidar loo yaqaano ay isticmaaleen dad xaafaddaasi aan deganayn oo markaasi taageerayaal u ah Maxamuud Nuur dhageysi maxkamadeed oo dhawaan la qabtay ayaa go'aamisay in dadkii markaasi ku codeeyay sanduuqaasi ay codkooda mar kale ay ku codeeyaan meesha ay ku nool yihiin si kastaba noqotee waxa iyaguna jiray dab shidayay oo kala dab qaadaya markaasi labada dhinac ee haweeneyda cadaanka ah iyo ninka Soomaaliga ah kuwaasi oo qaarkood ay u fahmeen in sheekadu ay tahay tii qabiilka ee Soomaaliya wax lagu qaybsan jiray gudoomiyaha Ward 6 Cabdi Warsame oo dhawaan la doortay ayaa wararku sheegayaan inuu si weyn u taageero haweeneyda Phyllis Khan oo uu markaasi ka soo horjeedo Maxamuud Nuur oo Soomaaliya guud ahaan Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis ayaa doorashadan u arkaa ciyaar u dhaxaysa marka si kale loo dhigo labada magaalo ee Gaalkacyo iyo Garowe oo taageerayaashooda markaasi wata jaraa'idka iyo warbaahinta dalkan ayaa indhawaalaba hadal haysay habdhaqanka Soomaalida ee dhinaca tartanka doorashooyinka ee wadankan Mareykanka ka dhaca daawadayaal stuudiyaheena sida aad aragtaan waxa marti noogu ah Ilhaan Cumar oo iyadu markaasi ah isduwaha dhinaca arrimaha siyaasadda ee ololaha Maxamuud Nuur dhinaciisa ka soo jeeda waxa geesta kala fadhiya Cabdulqaadir Yaasiin oo isagoo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee Maxamuud Nuur marka ugu horeysa ku soo dhawaada stuudiyahan ama santahay cali xaraare aniga Ilhaan waa dhownahay kulligiin waan salaameynaa cali xaraare iyo saaxiibadiisa bahda media Ramadan Kareem aad ma santahay su'aalahaynu bilaaban doonaa waxaan guud gali doonaa barnaamijkan aan iska wareysan doono Ilhaan baan ku horeyn doonaa Ilhaanay marka ugu horeysa dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday xaafadda Sidar markii gacanta la isula tagay iyadoo doorashooyin ama codad la bixinayo ee dib loo dhigay in yar iyo dulmar sida wax dhacay السلام عليكم على حرارة ومهدسن عليكم السلام عشان أن نقصوا عسنتي جانس كان أنا سيني سيدا نقوري سنيسي أدقي أصحاب هذا كل وان إذن وذا سلامينا يودت كنا دعونا أيضا وحن لنا هاي رمضان كريم إن هدي أن كسو لابتو إن سؤال شيء ويديسي إن بشي أفرت فبراير وحاجرتي إن كوكس oo laga suubiyay Sidar oo aan noo suurta gali weys inaan dhameeyno waxa dhacday dagaal aniga waxaan kamid ahay qofka kaliya meeshaas dhaawac ka soo gaaray ilaa ay hadda maxkamadihii ay ka socdaan wali dacwadaha socdo laakiin alxamdulillah dadkii rabay in oo ay annaga قلقل أين جليان أما عبس أين جليان مين نقولي سنين ولي وان تاجن هاي ولي ترتنكي أنكو جرنا ولي محل أي شيء لا وعسيدو كو قاعد هنا عمال بتكسر علي مسقف بعد ربعها كله فتي مسقف بعد سيدا وحده dad badana wax igarsiiyay madaxa gees wax iga gaaray laakiin alxamdulillah waan fiicanahay marka adigu waxaad u ololaynaysaa dhinaca Maxamuud Nuur aniga markaas qof dadka ku dilay ama gacan ku geystay waa dadkii ka soo horjeeday
dhinaca Filshan may anigu markaas qof maanan u ololeynaynin waxaan ka socday xisbiga dimuqraadiga kaakaska waxaa soo organize gareeyay xisbiga dimuqraadiga aniga markaas waxaan u fadhiyay boos oo la dhahayo vice chair Senate districtgaas oo ay tartanka ay ka socotay marka sharciga u degsan dimuqraadiga muu ogola in aad qof taageersanaatid marka aniga shaqadayda waxay ahayd waan iskala qaybinay anaga tiro badan aan ahay dadka go'aankaas gaaro waxaan go'aan lagu gaaray in aniga aan ahaado qofkii maalintaas maamulaya siidar ilaan aniga kaliya ka ahay xisbiga dadka meesha jooga qof af Soomaali yaqaano oo la dhaqmi kara dadka Soomaalida ah marka dadkii la socdayna haweeneyda Filisqaan waxay iyaga isfahansiiyeen haddii ilhaan booska aan ka bixino dadka kale guul waan ka gaari karnaa laakiin taas maynan ku guuleysan oo dadkii way la dareemeen oo waa la fahmay meeshay u socdaan marka dadka Soomaalida badanaa hadaati mar waxaad ka dhawaajisay Soomaali way kala qaybsan yihiin oo qaar iyada bay la socdaan qaar asiyay la socdaan taasna waa wax aan run ahayn oo aan anaga aan aaminsanayn dadka badanaa Soomaalida oo ku nool Senate District 60B boqolkiiba 95 waxay taageersan yihiin Maxamuud Nuur 5 aad jirto oo rabaan in ay hor istaagaan oo iyagana ma aha haweeneyda ay raacsan yihiin laakiin waxa waaye Maxamuud gaar ahaan ay waxaan weydiin doonaa Cabdiqaadir dhawaan Maxamuud Nuur oo taageersantiin oo loolanka ku jira waxa lagu eedeeyay dadka aad ka mid tahay ee taageeraya in isticmaalaan sanadiiq beena oo loo yaqaano 419 oo sidar ku yaala oo lagu been abuurtay qof aan meesha deganayn uu ku codeeyay isagoo meel kala degan taasina sharciga aan waafaqsanayn maxkamad baa markaa dhageysatay dadkii go'aankii ay gaadhay iyo aragtidiina waxa qabtaan waxa odhanay على حال ما ستا ولا ما horta taasi waxay noqotay horta Maxamuud waa shakhsi Soomaaliya wadankan dad badan umad badan oo Soomaaliya degan caruurteeda ayaheena iyaga waa meesha kaliya oo maanta aynu wax ka noqon karno weeye Mareykanka marka aliyo sumcadeeni in sida horta hal qof loogu tunto loo burburiyo horta wax nasiib darro ah shakhsi xataa waan loo garan karnaa laakiin sumcadii Soomaalida oo dhan ma loo garan karno taasi waxay noqotay nasiib darro been abuurashay noqotay waad aragtay maxkamadii markii dadka looga yeeray baaritaankii la sameeyay in wixii la sheegay ay been noqoto la waayay Soomaalida garan anigu waxaana ninkii dadka qaadayay oo geynayay meesha lagu codeynayo 149 sanduuq oo been abaad samaysteen baa la yiri arinta maxkamadii ma beenayso ma tir waxa saxba kama jiraan arinta waxaan okay go ahead so maalintaas waxaa isku imaatay waxaa in maxkamadda ay dhahday 141 qof xaqdari u codeynayso oo la register gareey waxaa la soo ogaaday 141daas qof oo ku register gareysan 419 Cedar Avenue in 2008 ay register gareysay 5 qof 2009 ay register gareysay toddoba qof aan dhahay 2009 toddoba qof 2010 28 2011 49 2012 29 kaleetana ay is register gareeyeen 2013 markii mayorka iyo city councilka loo tartamay waxaa kaloo la soo ogaaday 16 qof in 2014 kan aan hadda ku jirno ay is register gareeyeen 16 kaasna waxaa la soo ogaaday 14 kamid ah dadkaas in uu national change of address ka markii aad tagtid PO box ka bedelanaysid oo post office ka aad tagtid arabta address ka inaad bedeshid system waxa jiro is update gareey registration kaaga cusboonaysiinayo marka 14 oo kamid ah 16 qof oo sanadkan is register gareey system ka iyaga register gareeyo iyagii markii la weydiiyay maba aynan ka warhaynin registration marka intaas waxay ku tusinaysaa aan rabaa inaan ku fahansiiyo in hadalkan la soo qaaday oo dadka la dacweeyay ay dadka ay dacweeyeen ninkan Brian Rice la dhahayo waa lawyer oo petition ka suubiyay Phyllis Khan waa legislator 42 sano ay fadhisaa sharciga si fiican ay u taqaanaa waxay ku tusinaysaa in markii ay informationkan ay arkayeen ay tuhumka ay sheegayaan ay dhahayaan wuuna galay oo Maxamuud ay dusha ka saarayeen in ay ogaan kareen waxaan in ay run aynan ahayn oo ay ugu talagaleen in annaga ay nagu ceebeeyaan oo nagu cambaareeyaan ma fahantay marka Soomaali hadaan nahay waa inaan akhliyeysanaa
oo aan fahanaa siyaasadda dhinacay u socoto oo aan sayflabood aanan noqonin المهم كيس كوال اللي كواي بناك annaga waxba awil koreetaba annaga waxba kuma lahayn أنا كقدر سؤال الآن أضيق بنفوس وضع تقدر Haye, go ahead. إلهام وكسر لحي سؤال شاس وحوي dad badan xaqiiqda markaan ka hadalno oo daha ka qaadno dad badan oo Soomaaliya oo degan gobolkan baa aaminsan Maxamuud Nuur in laba arrimood uu aaminsan yahay aan lagu raaci karin labada arrimood ee uu aaminsan yahay maadaama idinku ka aaminsan waxaan rabaa inaan weydiiyo Maxamuud Nuur sidiisaba labada arrimood ma aaminsan yahay mise sheekadu waa sheekada suuqa waa xanta magaalada labada arrimood waxa weeye gay marriage in laba nin isguursato ama laba gabdhood isguursadaan inuu aaminsan yahay fikirka caynkaas fikirka labaad ee soo raacan wuxuu noqonayaa marwaanada ama drugs kalmika isteediyada qaarkood laga sharciyay in dadku si in limit ay ka isticmaalaan inuu isaguna rumaysan yahay in la isticmaali karo ay haboon tahay in drugska gobolka loo fasaxo haddii markaa uu helo xubinta baarlamaanka ka taageer ahaan maxaa la aaminsantahay Maxamuud Nuur muxuu aaminsan horta subxaan allah waxa way horta niyo Maxamuud wuxuu ka soo jeedaa waa dhal culamo weeye ka ab familka uu ka yimid waa reer culamo weeye Maxamuud salaad kuma daro waa nin salaadiisa tukada waa nin sooma waa nin muslim ah waa nin ahludiin ah Maxamuud wuxuu u ordayaa xukun buu u ordayaa Mareykanka waa nin dimuqraadi ah Maxamuud meel uu ku yiri anigu waan ku taageersanahay ama waan aaminsanahay ma jirto dacaayad iyo suuqa iyo wax la galay oo lagu faafinayay oo la dadka Soomaalida ama muslimiintu si ay uga haraan bay ahayd Maxamuud iyo hadda Cabdi Warsame waa laba nin oo dimuqraadiga ah hadda waxaan dooranay Cabdi Warsame oo u online oo war 6 u doortay xaafadda oo 6 u dooranay anu xaafadda ma deganid laakiin ummadii deganeed oo dhan oo muslimiinta ama Soomaalida ayaa dooratay campaignka iyo waxa lagu campaign gareynayay oo Filisqaan iyo dadka taageersan ay wadeen oo waraaqaha ku qaybinayeen sidar horta Maxamuud waxbay tartay iyagana backfire bay ku sameysay ummadiina way aragtay wixii meesha ka socday waxaan gacanteeda ku hayaa anigu hadda warqadani waa warqad City Councilka Minneapolis ay saxiixeen warqadani waa warqadii lagu ogolaaday oo City Councilka oo Cabdi Warsame magaciisa uu ku jiro lagu ogolaaday in ay saxiixeen maalinta dabaaldega maalinta dabaaldega xafladda dadka isguursanaya lagu sameynayo in Minneapolis halkan bay ku qoran tahay kulli oo saxiixeen Cabdi Warsame magaciisa ku jira oo uu isagu saxiixay oo uu ogolaaday in maalinta laga soo qayb galo in maalintaas ay tahay maalinta loo aqoonsaday in halkan inay ku dabaaldegaan Minneapolis ay xaflad ay ku dhigtaan labadii ka hor bay ahayd Soomaalida garan marka Cabdi Warsame naftiisa ku lug labaad leeyahay waa ka magaciisa waa ku qoran yahay warqada cidii aad doonto waa u soo print gareyn karnaa haddana TV-gan way ka arki karaan marka adigu laba isku ma heli kartid inaad ninkan walaalkaayana aad tirahdid dadkaasuu wata ood ku eedayso adiguna Maxamuud wali sharci u saxay ma jiro jago kuma fadhiyo laakiin Cabdi Warsame wuxuu ku fadhiyaa kursi buu ku fadhiyaa jago saxay ma heli kartid Cismaan wuxuu u matalayaa Cabdi Warsame iyo Filisqaan Soomaalida garan walaalahay waxa ay garan waayeen waxa weeye damage-ka loo geysanayo damage Maxamuud loo geysanayo ma waa damage community-ga Soomaalida loo geysanayo dhinac kasta haday noqoto dacwadda lagu soo oogay sidar ee beenta ah ee shaqeyn weyday waxaan candidate-ka Soomaalida wadato la burburinayo waa wax inaga damage inoo geynaya laakiin waxaan anigu aaminsanahay inay anfacday Maxamuud oo ummad badan oo aan rabin inay markii horeba siyaasaddan iyo galaan ay soo galeen hadday noqoto volunteer hadday noqoto inay codayaan oo Maxamuud u shaqeynayso waaya ilaahay su'aalkan ku weydiinaya ma mid marwaanada aan kaaga ku taabto kasto yar tii kale ka hadlayso Cabdiqaadir Muusa ka hadlay marwaanada waxaa jiro wax oo popular ah oo la dhaho in la legalize gareeyo marwaana annaga waxaan ka midnahay dadka loo yaqaan minority-ga oo midabka madowga leh wadankan aan degannahay dadka badanaa xabsiga galo oo sharcigaasaytii uu dhibaato u keeno waa dadka midabka madowga ah sharciga markii legal laga dhigo ma aha adiga inaad u advocate gareynaysid dadka in ay isticmaalaan marijuana waa inaad leedahay dadkii in xabsigii iyo xumaantadii ku dhici lahayd iyo bahdilkii lagu suubinayay dadka midabka madow in la nusqaamiyo maahina in aad dhehaysid ma aha in la isticmaalaan rabaa wixii waa kala duwan yihiin sharcigu
qofka uma ogolaanayo isticmaalkiisa wuxuu joojinayaa in qofkii haddii wixii lagu qabto xabsi aanan lagu aan la gelin. xidhin. Ha. laakiin dad baa ku dhiiran kara is odhan kara mar haddii aan lagugu xidhayn drugskaas iska isticmaal way dhici kartaa inay saasna u dhacdo aan ka gudubno su'aal kale ilama aha aniga taas. waa hagaag su'aal kale aan kugu soo gudbinaya waxa weeye dadka ina daawanaya si ay u fahmaan waxaa tartamaya Phyllis Khan oo ah haweeney cadaan ah oo 42 sanadood kursigan fadhiday waa xisbiga dimuqraadiga dhinaca kalena Maxamuud Nuur oo xisbiga dimuqraadiga isaguna ka soo jeeda maxamed magaalada iyo hadalkiina imika waxa ku jirta markasta Cabdi Warsame oo isagu golaha deegaanka meeshan loo doortay Ward 6 hadda ka hor inuu sheekada ku jiro oo uu gacan weysiinayo ama taageerayo Phyllis Khan culays inta laag baad ku haysaa dhaqdhaqaaqa Cabdi Warsame iyo kooxdiisa aniga haddii aan ka hadlo dhinaca campaignka anaga culays weyn nagu ma hayso hadda doorashadeeni way noo socotaa 2 week iyo bar ee waxay furan tahay early voting waxaa noo suurta gashay ilaa iyo 1,200 oo qof aan geyno oo aan Maxamuud Nuur oo ay soo codeeyaan wiligeed historyga magaalada Nayti iyo historyga America oo maba aysan ka dhicin intaasoo qof in la geeyo 2 week gudahooda marka taas waa mid anaga guulnoo ah dad waa jiraan oo isku dayaaya meel kasta aan istaagno in ay naga cariiriyaan dad waana laga dilay dad waa la handaday maxaa la sheegayaan dhaweyd hadda waraysi baan galnay oo show aan laga waraystay cajalkeena waa la tirtiray meel kasta waxay isku dayaan in ay naga soo cariiriyaan waraaqaan dhiibnaa dadaan isku daynaa inaan shaqo siino haweeneyda xataa oo Phyllis Khan dad badanaa jira aniga dhalinyarada saaxiibaday ah oo state legislation ka shaqeeyo markii campaignka ay soo galaan ay rabaan Maxamuud inay taakuleeyaan waxay wacdaa managerkooda shaqadii waa laga soo buriyaa oo cariiriyay ka gelisaa way handadaa dad badanaa jira marka oo hooseyn oo la shaqeeyo laakiin shaqadii way noo socotaa ileen markii aad message wadatid oo dadka ay aaminayaan oo aad ka hadlaysid wixii danta guud dhan anfacayo dadka way ku soo kacayaan oo way ku heelinayaan oo walaaltinin bay ku la soconayaan anagana guulaan yeelanaynaa iyagana meel ma gaarayaan Cabdiqaadir waxaan rabaa inaan ku daro wax yar oo shacabka Soomaalida ama cadaladan daawanaya meel kasta ay joogaan aan rabaa inaan u sheego horta marka hore hadda intii waxa aad ku jiray waxa loo arkaa dadku u arkaan Garowe iyo Gaalkacyo ma aha dadka Gaalkacyo iyo dadka Garowe iyo dadka Xamar iyo dadka Beledweyne iyo dad Soomaali oo dhan Maxamuud waa taageersan yihiin uma kala qaybsana taas waa mid tan kale markii electionka u socday delegate-ka ayaan waxaan ku qornaa xaafad liya Prospect Park waa Soomaaliya wallahi baan been sheegin iyo billahi waa bil Ramadaan Phyllis Khan oo meesha timid baan waxaan ku iri Phyllis ma ogtahay baan ku iri sida in lagu diro marka habeenkii la dilay Ilhaan ma ogtahay baan iri in lagu diray oo dad lagu laayay meesha la yiraahdo ilaahay baa iga sareeya aakhirana 2 mar baa garbayga saaran waa la weydiinaya kelmadda igu jawaabtay ayaa waxay tusaysaa inay tahay out of touch oo ay Soomaali inaysan kala jecleen waxa igu jawaabtay I don't care lagama qabato anagu xumaan kale uma nahay Phyllis Khan representative greensi Soomaali meesha ugu badnayd anu wax xumaan oo kale aan ka sheegaya ma jirto waxay ahayd in ay damqiso cidda dagaalka dhacay masiidar ka dhacay iyo cidda la dilay inay damqisay ahayd marka I don't care meel wax soo geli kara macnaheedu ma aha Soomaalida marka waxaan rabaa inaan dareensiiyo Maxamuud Nuur waxa uu ordayaa position ma aha inuu isagu shaqo wuxuu ka soo tagay oo IT ah oo state-ka u shaqeeyo oo lacag sameeyo Maxamuud Nuur markii ugu horeysay anigu aan la fariisto su'aalahan weydiiye kamid ah iskama aan raacin anigu Maxamuud what you up to maxaad qabanaysaa Maxamuud wuxuu yiri meesha state-ka waa meesha lacagta lagu kala qaybsado waa meesha dadka community kasta waxooda loogu gooyo annaga ayaa noogu jira haddaan nahay Soomaali sidar seaward anywhere cid annaga noogu jirto ma jirto anigu xaqii dadkeenana raadinaya ummadda kale oo district 60B raadinaya ayaan waxaan rabaa inaan cod u noqdo laakiin maalin kasta inuu intuu qof noo yimaado oo cod naga soo doonto oo markuu codkiisa hore naga tago waxba noo qaban dee waajib maaha Soomaalida iyo dadka district 60B degan Oromo Ethiopian Eritrean Arab haddaan cid walba choice iyaga iska leh weli su'aashaan raadin waxa weeye Cabdi Warsame oo jagadiisa haysta oo isagoo aan doorasho ku jirin oo hore loo doortay waa maxay sababta u weyn ee uu xiiseenayo Phyllis Khan ee uga soo horjeedo Maxamuud Nuur taageerayaal badan uu ku leeyahay meeshaas sababtu waa maxay ana ku sheegaya in adeer meesha waxa ku jira nin la yiraahdo Brian Rice
haddaad political backgroundkiisa akhriso articlaa jira ku jira meel kasta ku jira Brian Rice waxaa dadka politicianka qaarkood reer Minnesota ay yiraahdeen oo articlaas oo hadda aan ku soo bartagay kana waxa uu gudaa habeenkii waxaa socda masaska halaqyada baalaha dadka wax qaniino sunta ah socda waa nin dhib badan ma waa nin habeen buu shaqaystaaba waa article oo qoran weeye Brian Rice waxa la community uu dhex galay oo aan afar qaybood u kala jabin ma jirto annagu marka waxaan leenahay taawadiidana maya waxa weeye Brian Rice ayaa meeshan macalinka weyn ah Abdi Warsame Ismaan Sheikh Filis Khan kulli waxay hoos yimaadaan Brian Rice okay aniga mid yar aan ku raaciyo waxaan waa siyaasad qof markii uu dadka ka dhaadhacsiiyo in asiga uu yahay qofkii dadka ay aaminsan yihiin ay raacsan yihiin oo community-ga dhan ay hoos imaadaan wuxuu ku qasban yahay dadkii waxaas uu ka gaday in wixii uu tusiyaa dhibaatada hadda haysata dadkan Maxamuud Nuur ka soo horjeedo waxa way ideyadaas ay dadka gadeen oo Filis Khan ay ka gadeen oo Brian Rice ay ka gadeen waxaynan fahansaneen in dadkii ku hoos imaanayay ay Soomaali ahaayeen oo annagana aan ku abtirsano maanta wiil kale Soomaali markuu meesha soo istaagay oo ka tacliin badan oo ka halgan weyn oo maxaa la dhahaa isheeg dawladda u soo shaqeeyay Soomaalida intii u taray la tilmaami karo gaalada la soo macluumaystay qof la fahmaayo uu yahay in aadan hor istaagi karin oo adiga aad ku lugaysid marka ceebta u taala dadkan waxa waaye dad bay hadal ka soo dhaadhacsiiyeen dad bay u faaneen oo shaati ay u xirteen oo ay dhaheen anigu nin rag baan ahayo dadkan aniga bay i dhageystaan odayaala i dhageysto maamooyina i dhageysto dumara i dhageysto kana i dhageysto dadkii marka maanta waxay la yihiin waji ay dadkii ku soo hor istaagaan waxa la leeyahay kunkaan Maxamuud daba ordayso boqolkaan ilhaan dhageysanayso kumayaalkan Cabdiqaadir daba ordaayo intee ka imaadeen aawe adiga yaaba aheeday qofkii community-ga oo dhan boqor u ahaa marka intaas waxay kugu qasbaysaa adiga markii aad tahay qof powerka struggle markaa ku jirtid waa ogeed Khadaafi oo kale iyo Xuseen Saddam Hussein tii ku dhacday inaad struggle gashid waaye ilaa maalintii aad dhulka lagugu jiidaayo oo dhiig ka daadanayo aa waxaaga ku dhaganaatid aniga midda aan ka cabsoonayn waxa waaye maalintii dhiig bixi inuu imaan doono oo dadkii ay dareemi doonaan inay power community-ga ay leedahay oo annagana aan nahay dad karti leh oo Soomaalinimo jecel oo hal qof uusan awood u lahayn inuuna kala jijibiyo taasna ma suurtagelayso weligeed iyadoo aan waqti ka faa'iideysano mar kale su'aasha nidin somebody waxa ilhaanay waa lagu tuqaantuqiyay madaxa lagu dhiftay waa lagu dhaawacay maxkamad baa laydin la fuulay oo laydinku yidhi sanad diiq been aad samaysateen hawlo kale ayaa laydinku eedeeyay oo tiimka marwaanadu aan sheegay ay ka mid tahay iyo game marriage uu ka jawaabay Cabdiqaadir waxaasoo culays markaad eegtid rajo intee la eeg baad qabtaa in Maxamuud Nuur uu guuleysto rajada qabtaa intee la eegtay Amerikaanka waxay dhahaan haterskayga motivation ay siiyaan dadka oo iga soo hor istaago waxay siiyaan aniga dadka iga soo horjeeda waxay siiyaan dhiig aan ku dhaqdhaqaaq karti baa isii gasho annaga campaign-keena dhan wuxuu ku dhisan yahay oo dhiirigelin dadka si Soomaali Ilaahay keena noo imaado bahdilka dadkan ay nagu haayaan dadka waxay rabaan desperate ay u yihiin gaal iyo muslim gaaladana dhinaca Filis Khan iyo Brian Rice waxay rabaan inay tusiyaan awoodoodii inay dhamaanayso Soomaalidana waxay rabaan dadkan Soomaalida dhahay annaga control gareyno inay tusiyaan powerkooda inuu dhamaanayo in shakhsi America dictatorship bajiro democracy one man one vote marka dadka waxay rabaan in sharaftooda ay soo ceshtaan oo ay tusiyaan annagana rajada aan leenahay waa rajo fiican because campaign sax baan wadnaa campaign xaqaan wadnaa dad ma gardareysano dhinac qaladna ma fiirino aqoon guuleysanayna taa laftigeedan waxaan ugu darayaan oo ma santahay inaad waxaan u malaynayaa maalintii ugu horeysay oo Maxamuud ku dhawaaqo inuu u ordiyo district 60B inuu u rangareynayo waxaan u malaynayaa rekorkan bay jabisay kun qof baa waxa isugu timid Brian Call community-geeda waxay ahayd bilow Teddy qabowgu maayn soddon buu ahaa waxaan caawa jeclahay anoo ka faa'iideysanay fursadda una sii cali xaraare in aan uga mahad celiyo hooyooyinkii aabbayaashii gabdhihii dhalinyaradii
qabowgaas aad aragtay inta ka soo baxay guryahooda ninkaas soomaaliga inuu ordayo meesha ay isugu yimid waa bil rabadaan ilaahay ha idinka jaasa mariyo waaya anigana intaas kastoo yar ma raacin karaa haye. raadaha waxaa waaye bil ramadaan aan ku jirnaa dadku way sooman yihiin waa ogtahay waqtigina aad u dheeryahay maalin ilaahay keena waxaan helnaa dad ilaa iyo 8 saacadood waqti geliyo hooyooyinka inay kaxeeyaan iyo aabooyinka inay soo codeeyaan oo galabtii markii foorteel meesha la soo xirana dhowr naakin noo aad dadkaas waxaan leenahay waa mahadsan tihiin dadka iyagoo salaad taraawiix ka imaaday tahajjud ka imaaday noo soo kacaayo oo noo soo codeynaayo waa mahadsan tihiin dadka lacagtana siiyo dadkana taageer gareeyo dadkiinaan miidiyada oo waqtigana siinaayo waa mahadsan tihiin gaalada saaxiibadeen walaaladeen iyagana nala soo halganka nagula jiro waa mahadsan tihiin marka kulli xaasaskeena odayaasheena kulli waa mahadsantay haddii bay dhacdo in maxamed nuur ku guulaysto kursiga imika u ordayo oo uu soomaali u noqdo madax hankiisa siyaasadda intaynaan gelin idinkii kambeynka ololaha ku jiray u ordayey dadkii faraha badnaa idinka hor yimid ee idin zaxmadeeyey ee idin tuqaantuqiyey idinla dagaalamay idin afligaadeeyey hadday doonto ay dhacday waxaasoo dhan dadkii idin geystay berri marka maxamed meeshii qabsado misleedihin ka aarsada mise waxaad isleedihin dadkii saamaxoo dib ugu noqdo waxaad tirahdaan dad ololo orday baan aynu cafi iyo musaamax isnidhaahno caliow wax aanu anagu cid aan wax u qabno ma jirto hadda waa bil rabadaanna waxa weeye waa in qofkii aad wax ku qaban aad cafiso adigana aad dadka cafis weydiisto aniga tv-ga ma waxaan ka weydiisanayaa iyagana haddii wax loo qabaa inayna cafiyaan anaguna cafino waa walaalahayo su-aasha ugu dambaysa dadka idin daawanaya waa run amiin taas aan ku dhahno annaga dad muslimaan nahay waaya cafis waxaan waa su-aasha ugu dambaysa fursadda ugu dambaysa aan siiyo dadka idin daawanaya ee saaxiibadana ee aad idin taageersan ee maxamuud nuur la socda gaar ahaan maxaad ku odhan lahayd dardaaran qofba kelmad kulli waxaan idin leenahay horta sidii hadaati aan u dhahayo kale aada u mahadsan tihiin walaaltinimada aana tusiseen halgankan aa noogula jirtiin weli wixii muusan dhammaanin 25 beriyaa noo dhiman ilaa iyo agost 12 aan haysanaa waxaan idin weydiisanaynaa in aad idinkana weli noo soo laabatiin walaalihiin aad u sheegtiin meel kasta aad joogtiin qof kasta oo ku nool sana district 60B aad xasuusisiin doorashada inay jirto Monday ilaa iyo Friday 8 ilaa iyo 4 doorashada waqtigeedii waaye nagala soo qayb gala sabtida bisha August 12 second iyo August 9 sabdiyaalka waa la codeynayaa labadaas sabdi waxaan idinka codsanaynaa inaad noo imaatiin caawintiin dadkana aad gaarsiisiin si ay noogu soo codeeyaan aad u mahadsantahay waxaan ku dirayaa walaal macaan horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan gaar ahaan u mahadcelinayaa dadka degan district 60B hooyooyinka Sooman abayaasha Sooman gabdhaha wiilasha kulli kuwa baabuurta wada ilaahay khayrkeeda ha idinka abaal mariyo ninka walaalkiina si aad u caawinaysaan annaguna aanu caawinayno oo aanan mushaara ku qaadanaynin waxaan u rajaynaynaa inuu guulaysto danta iyo danaha ayaha Soomaalidana uu ka shaqeeyo waana mahadsantihiin idinka mudan aad baa mahadsantahay adaa mudan walaal macaan waxaa daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobaya barnaamijkaasi aan ku wareysanayay Ilhaan Cumar iyo Cabdiqaadir Yaasiin oo iyagu doorashooyinkii dhacdooyinkii u dambeeyay markaasi ka hadlayay waxa ay la socdaan dhinaca Maxamuud Nuur tan iyo kulankeena dambe daawadayaal inta barnaamijkan oo kale aynu dib ugu kulmi doono waa Cali Xaraaro dhamaantii idinkaga tagay sida iyo nabad geliyo